haddaad bad rabto abi axmedow ka jira xagga u doono badan dad baa leh muuse bixi Soomaa muuse waxba lama joogo badna ma bixin karo guri Hargeysa ku yaala ma bixin karo bad iska daay guri Hargeysa ku yaalo ruux ma siin karo oo ninka la nool yahay bad intay joogtaa guri Hargeysa ku yaalo qofkii la nool yoo diidan yahay muuse dawlad baan ana bixi ma dhigi karo bad xagee joogtaa iyo 40 square kilometers oo Soomaaliya ay leedahay Soomaaliya ka mid tahay waa Hargeysa meesha waa goboladii waqooyi Soomaaliya ka mid yihiin dalka ha laga difaaco cadawga wadanka Soomaaliya waxa loo tashaday xilli fog oo maanta hadda nin waqtiga joogay oo maanta nool uusan jirin ayaa loo tashaday Soomaaliya waxa la isku dhihi jiray meesha hadda Djibouti loo yaqaano kilinka shanaad oo Ethiopia ku dhex jiro iyo meesha aan ka hadlayo oo Kenya ku dhex jirto intaas Soomaaliya ahayd kufri baa u tashaday oo kala jarjaray oo ku talagalay wadanka inta la eegay khayraadka leh hal luqad iyo hal beel hal jinsi ay hal shakl iyo dad leh diin ay ka muuqato oo hal diin qabo inayna ku dhaqnaanin la kala qaybiyo qoloba meel raaciyo in Faransiis baa loo dhiibay in mililqi marka joogay baa loo dhiibay anagooba codaynay oo intaan codaynay wadankeenan raacayna aan taaganahay oo shirki laan kasta intuu dhacay rag ahaa oo Axmed Cabdi Oglow kamid ah Allah naxariistay ka qayb galeen oo intii la codeeyay afti la qaaday aftidii jawaabtii ay noqotay Soomaaliyan raacayna baa dhegtana lagu dhuftay Soomaaliya marka waa loo maqan yahay lagama maqno dad u maqan baanahay kama maqnin nin aan leenahay way idin ka wadanisan yahayna ma jiro waxaan marka ku talinayaa inaan loo kala harin taageerada difaaca qarannimada iyo midnimada Soomaaliya taa macnaheeda ma aha ninka hadda xilka hayay u dan tahay maya nin walba oo af Soomaali ku hadlo hadduu maanta nool yahay dibadda ha ku noolaado dalka gudihiisa ha ku noolaado kuwan jiraamada ha ku noolaado hadduu doono mid dhalan doono ha noqdo haddii la yiraahdo waxay dan u tahay dadkaas Soomaali la yiraahday dan u tahay in la difaaco midnimada iyo qarannimada iyo sharafta Soomaaliya in la difaaco inagoo dhanbay dan u tahay waxaan marka ku talinayaa hadda shir baa ka socda xamar ma aqaan xalay inuu gabagaboobay iyo inuu shalay gabagaboobay inta ka horreysay waa socday waxaan ku talinayaa shirka dadka joogo ee duqeyda gobolada madaxda ka iyo madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaraha in la heshiiyo oo loo heshiiyo dalka Soomaaliya oo loo heshiiyo sidii Ethiopia looga difaaci lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudow oday Soomaaliyeed baa tahay waa lagu doortay 4 sano hore ayaad maamushay qabiir ninkeeda dhamaystiraa dhihi jirtay Ilaahay ma qadarin ma aanad ku soo noqonin nin baa Ilaahay u qadaray ninkina 4.5 meesha lagu joogay labadiisa lugood uu ku taagnaa ayuu garan waayay labadii lugood uu ku taagnaa oo 4.5 uu kala ahaa labadii buu garan waayay labadii buu gooyay isna waa go'ay sidii buu ku tagay labadii isaga la dhasheen ee isaga uu gooyay isagana lugaha ay jareen labadii baa adiga ku keeneen bacdallah sababku ah maanta ma filayo Ethiopia qaataba inuu jiro ma ogi aan iska celino nin Soomaali oo diidayo ma jiro caalamka Soomaalida ku nool hadii afti laga qaado oo Ethiopia walaal noo walaal bay noo tahay mise cadow bay noo tahay la yiraahdo waxa soo bixi 100% inay cadow noo tahay oo aan marna walaaloobi karin hadii gabarna guur markay noqoto labadeen ma qaybsadaan nin baa qaba ninku afar waa guursan karaa rabba u baneeyay laakiin gabaray hadii nin baa qabi karaa Soomaaliya hal wadan la yiraahdaa nagama dhaxeen karo anaga Ethiopia nagama dhaxeen karo Soomaaliya geel nin leeyahay qowsaar la jiro oo hal laga xadi oo hashi la gadani oo lacag la siisani ma aha waa wadan qariirada adduunka ku yaalo oo xuduudii uu ka tagay gumaysiga ay jiraan Ethiopia iyo wiilkan yar hadda joogo waxaan kula talinayaa shalay bad baad lahayd markaad isla afgambiseen Xayla Maryam badi wiil baa qaatay badi waxa qaadatay aba shalay lahayd Eritrea ku taala sidii bay u taala haddaad bad rabto ka qaada isla safarki haddaad leedahay tana dhow ee tanaan ka qaadani hadii ilmaad ahayd markaan la dagaalameynay Xayla Maryam kolkay Soomaaliya la dagaalamaysay loo aad wax garanayso ma aadan ku soo orodeen Soomaaliya wax ka daran baad kala kulmi dadaan oomeynin oon daalaynin oo 5 bari 6 bari baahnaan karo diriri karo way dadka ku soo ordayso dad dhamaantii tababaran weeyaan dad 3 milyan 4 milyan oo ruux oo dagaal gasho maalin qore laga heli karo weeyaan dagaal anaga ma rabno waxaan leenahay dalka haddaad bad rabto abi axmedow ka jira xagga u doono badan dad baa leh muuse bixi Soomaa muuse waxba lama joogo badna ma bixin karo guri Hargeysa ku yaala ma bixin karo bad iska daay guri Hargeysa ku yaalo ruux ma siin karo oo ninka la nool yahay bad intay joogtaa guri Hargeysa ku yaalo qofkii la nool yoo diidan yahay muuse dawlad baan ana bixi ma dhigi karo bad xagee joogtaa iyo 40 square kilometers oo Soomaaliya ay leedahay Soomaaliya ka mid tahay waa Hargeysa meesha waa goboladii
waqooyi Soomaaliya kamid yihiin dalka ha laga difaaco cadawga dalka ha laga difaaco naaqoodayaasha waxa soo haray adiga iyo dowlad goboleedyada Xasan Sheekh Maxamuud u dhimri nimankan u dhimri u tartiibi wax alla wixii kharaar Soomaalida waxay ku wamaadeen wax kharaar niman laqin wax macaan ma gaaro subhanahu sallallahu wa sallam alayhi wuxuu qaatay sulhul hudaydiya wax lamid ah haday jiraan qaado sulhul hudaydiya ciidanku la tagay 1400 bay u badiyaan ahlu siyarka iyo u badiyaan 1300 1500 laakiin 1400 bay u badan tahay laba sano oo dhamaanina fathul makka 14 nin buu watay 10 nin buu watay 10 ayuu watay 10 buu watay sallallahu wa sallam alayhi wixii kharaara ay u laqay ee asxaabta ay mari weyday ridwaanullaahi calayhim ee Umar waxa aragtay su'aale uu ka soo jeediyay sulhul hudaydiya ka dhacay diinta waa taqaanaay nimankaas gadaamaydooda ha walaaqdaan daa intii dagaalkan lagu jiro nimanka gadaamaydooda ha qaloontaan ha walaaqdaan daa dalka markuu dagaalkan ka baxo oo Itoobiya insha Allah waa laga guuleysay wixii la socdo marka ka dambe ha noqoto in laga arrimiyo arrimaha gobolka dalka isku duubnidiisa iyo sharaftiisa ha la ilaaliyo UN tale Itoobiya iyo Soomaaliya isla hadlaan UN miya maanta jirtaa markay Gaza waxa ka dhacayaan masaakiintii iyo caruurtii iyo hooyooyinkii iyo waayeeladii iyo bukaankii habeen walba konton uu dilay Netanyahu adduunka Netanyahu baa maanta UN ka isaga Mareykanka asaga Yurub ka asaga Guterres ka Netanyahu wali moo dhihin Itoobiya iyo Soomaaliya wada hadlaan UN kala noolna ma jirtaba way iscazili lahaayeen haday jiraan anigu waxaan leeyahay dalkaada madaxweyne ka in lagu shaqeeyna waa la ogol yahay ku cibra qaado shalay wixii walaalka ku dhacay wiilkii ka horeeyay shaarubaha lahaa wixii ku dhacay ku cibra qaado ha noqonin midka lagu cibra qaato nimankan yiri waxooda ha walaaqdaan u daa dagaalkana ha kugula jireen dalkana ha la difaaco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.